wafdigan ka socday wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee dalka Masar ayaa maanta waxay kulan la qaateen wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye. Wafdigan ayaa ka kala socday wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha, bangiga dhexe, bangiga horumarinta iyo safiirka dalka Masar u fadhiya Soomaaliya. Kulanka markuu soo ilaaday ayaa waxaa ka warbixiyay wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya asagoo sheegay inay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada dal ganacsigooda. waxaanu ka wada hadalnay dabcan si xoojinta xiriirka siyaasadeed dhaqan ganacsi ee dalka Masar iyo Soomaaliya ka dhaxeeya ayaanu ka wada hadalnay. waxaanu ka wada hadalnay sidii loo xoojin lahaa ganacsiga iyo wax isdhaafsiga labada dawladood, sidii ganacsatada Soomaaliyeed u heli lahayd suuq kale oo weyn oo ay geeyaan waxyaalaha ka soo baxa dalka Soomaaliya. wafdiga Masar ka yimid oo runtii aad u ballaaran sida halka ka aragtaan, waxaanu kala hadalnay oo ku heshiinay in dalka Masar uu u furan yahay ganacsiga Soomaaliya ama waxa Soomaaliya ay dhoofinayso oo ay kamid yihiin xoolaha nool, oo ay kamid yahay kalluunku iyo waxyaalaha beeraha ka soo go'a. waxaa dhici doona kulamo kale oo rugta ganacsiga Masar iyo rugta ganacsiga ee Soomaaliya, wasaaradda ganacsiga iyo wasaaradda ganacsigu ay kulamo ku yeelan doonaan magaalada Qaahira iyo magaalada Muqdisho iyo meelo kale. ganacsatada Masar waxaanu kala hadalnay oo ay ku jiraan kambaniyo danaynaya inay dalka warshado ka sameeyaan, ay ku jirto warshadaha shamiitada iyo warshadaha waxyaalaha beeraha ka soo go'a lagu sameeyo. waxaanu u sheegnay in dalkani u furan yahay. dhanka kale wafdigii ka socday dalka Masar ayaa ugu mahadceliyay isla markaasna sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin kulanka. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wasiir ganacsiga, all colleagues, waa ku faraxsanahay to be here in wasaaradda ganacsiga. اسمحوا لي طبعا أن أتكلم باللغة العربية وهي اللغة الرسمية للدولة ولغة القرآن الكريم. أنا سعيد جدا جدا بتواجدي والوفد المرافق لي، الوفد الرسمي التجاري المصري المتواجد معي في ضيافة معالي وزير التجارة في وزارة التجارة والصناعة الصومالية. ونحن جئنا اليوم طبقا للتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبالتنسيق مع معالي الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو. عبد الله محمد، جبلان TV، مقدشو.